Somaliland waxa muuqda in diintii la iskaga baxo inay yaru jirto oo la yiraahdo kuwaas haday muslimiin yihiin annagu waxaan noqonaynaa gaalo waxa yaab noqday in yahuud oo ilaahay subhanahu wa ta'ala oo ka waramay waxay yihiin inay noqotay qoladii ugu horeysay ee ictiraaftay iyadoo ictiraafkaasi aw miiska saarnaa sidaan warka ku hayo ilaa iyo waqtigii rayaale waqtigii sirayo waqtigii uu joogay musabbixi laakiin madaxweynayaashaas oo dhan way xishoodeen inay yiraahdaan yahuud baana ictiraaftay way ka xishoodeen laakiin madaxweynaheena imika inoo soo qaaday waxay ahayd siday kuwaas uga xishoodeen inuu uga xishoodo waayo wax dad la hor keena maaha yahuudda ictiraafkeedu marka horeba niman qafis ku jiro adduunyadii oo dhan ay ka yaxyaxsoonayso oo cid albaabka ka furta raadinaysa Mareykan kaliya madaxa ku sito ayaa ahay yahuud diyaar bay marka horeba la hayeen inay ictiraafaan yahuud bay ictiraafto wayaa waxa ka siiya badan in safaaradda angeysanay Qudus Qudus geynta la geeyay safaaradda macnaheedu waxa weeye geynta la geeyay Qudus safaaradda maxay noqonaysaa macnaheedu iyadoo yahuudu dhibaatada inta leegan soo tilmaanay ay geysteen macnaheedu waxa weeyaan yahuudu iyaga iskale baytul maqdis dhulkana iyaga iskale iyaga xaq u leh falastiiniyiintuna waa zaalimiin xaq darro ku socda oo boob ku socda in la leeyahay way macnaheedu waa saas way waana khidlaan waa hoojin walaalahani muslimiintii aan hoojinayno oo aan dhabarka ka jabinay oo aan hoojinay hoojintu waxa weeye isagoo la kaalmay inaad u kaalmayn weydo inaad cadowgiisii oo ka xoog badan aad ku eegto bal hadaad u raacdo ka waran oo aad kaalmo siiso cadowgii aad kaalmo siiso kaalmo xaqii aad garab siiso gaalkii wala tarkanu ila alladina zalamu gaalkii aad gacanta siiso oo isaga taageerto isagoo muslimkii madaxa kaga fadhiya oo caruurtii yaryarayd iyo xamastii sida loo galay aad ogtihiin oo cid ka qarsoonayna jirin war shalay miyaanan Falastiin lacag ururinaynin shalay baan lacag ururinaynin madaxdeenu haday madaxweynaha tahay haday wasiirada tahay wixii ay doobeen baa la hayaa codadka ay doobeen oo Falastiin ay ku taageerayaan oo isku garab taagayaan ayaa la hayaa xoolaan ururinay oo lacag baan ururinay oo Soomaaliya oo dhan baa ururisay oo Somaliland baa hormuud ka ahayd oo madaxda hor socday war maxay isbedelay mayna kuwii madluumiinta shalay ahayn shalay mayna madluumin ahayn shalay maana heelinaynin maxaa keenay maanta inaan hoojino war ilaahan ka cabsano waxaan leeyahay oo aan madaxda dawladda Somaliland oo madaxweynuhu ugu horeeyaan leh war arrimaha eega oo dib ugu dhaqda war xataa carabta heshiiska la gashay yahuudda dhowr dawladood baa heshiis la galay heshiiskan oo Mareykanku sameeyay ee Abrahamka Mareykanka wada dhowr dawladood baa la galay yahuudda waa heshiis laba garab leh garab siyaasi ah iyo garab diini ah heshiiskan waa garabkii siyaasiga laakiin waxa daba yaala garabkii diinta waana tan imika la soo saxeexay keentayna safaaradda in halkan laga furo marka dawladaha heshiiska la galay safaaradooda baytul maqdis may geyn caasimadda yahuudda hore ayay geeyeen dhammaantoodna imika way dhaleeceeyeen arrintan imika dhacday 150 dawladood oo gaalo badan baa ka soo horjeestay yahuudda oo calaaqaadka u jaray waa 150 yahuudo ee dawladood wadanada qaarkood oo gaalaha yahuudigu isagoo calaamadiisii iyo koofiyadiisii wata hotel ma soo gali karo waa la eriyaa hadduu hotel ka sharaabo ama wax ka cuno hotelkaas uu xirmaya siday dadku adduunyada uga yaxyaxsadeen waayo niman dugaagay noqdeen oo caruur iyo dumar laynaya waad arkaysaan waxa imika Lubnaan ka dhacaya war dadkii noocaas ahaa ma kuwaaba sokeeyay noo noqday wixii gaal xataa adduunyada joogay ma kuwii ugu liitay ayaa sokeeyay noo noqday ma kuwaabaan garab siinay war ilaahan ka cabsano war ilaaha khaaliqa aan ka cabsano